qisadani waa dhab waxaana inoo soo dirtay Saara oo ku nool magaalada Muqdisho waxay tiri qalbigayga wuu jabay shanqar iyo dhawaaqna midna muu sameyn laakiin xanuunkiisa baan dareemaya haddaba daawadayaal waxa aad u soo badanaya dhalinta isku qiyaamaya jacaylka rag iyo dumarba waxa ina soo gaaraya dhalinyaro lagu cidleeyay jacaylka markay islahaayeen gurta mirihiisa maxaa gabdho aroos isku diyaariyay garabkooda laga baxay maxaa mucaashaq ku maqnaa Suuriyadii xilli uu islahaa idlaatay hawshii laga raacay ruux kale waqtigu muxuu dabray ruux gacantiisu maran tahay imisa laga dhoofo hadda aan dib loo wicin imisa la takooro qabiil ku seegay jacaylkoodii waa adduunyo ay cadaaladu ka sii dhamaanayso haddaba ayaha nolosha TV oo ah saaxiibka dhibanaha jacaylka wuxuu markasta ka wacyi gelinayaa dhalinyarada qiyaanada waxaanu idin soo bandhigi qisooyin badan oo ay inoo soo direen asxaabteena oo dhammaantood ka hadlaya dhacdooyin soo maray noloshooda suurtagalna ay tahay in qaarkiin sidoo kale ay dhacdooyinkaasi ku dhaceen haddaba intaan qisadani xanuunka badan ee gabadhan ku dhacday aan idiin soo gudbin bal aan isku dayo inaan hal iyo laba ka qeexo jacaylka waxa uu yahay iyo waxa lagu tilmaami karo haddaba jacaylku waa nolol u baahan in la dhowro jacaylku waa sida beerta oo kale beertuna waxay u baahan tahay abuurid ilaalin iyo gacan ku hayn joogto ah waxay u baahan tahay beertu in xididada ay la gasho carasan wanaagsan oo ay ka soo duxayso nafaqo macdaneed iyo dheef aad u tayo badan waxay u baahan tahay beertu in lagu waraabiyo biyo macaan oo qabow ah dushana ay kaga dhacdo neecaw qabow ah oo ciyaarsiisa caleemaha iyo ubaxa curdinka ah waxayna u baahan tahay in laga ilaaliyo lagana fogeeyo kuleelka iyo dhamac kasta oo ku keenaysa angag iyo qalal abuuri kara kala dhantaalmid ku timaada quruxda iyo bilicda dhirta waxayna u baahan tahay in laga ilaaliyo lagana fogeeyo kuleelka iyo dhamac kasta oo ku keenaysa angag iyo qalal abuuri kara kala dhantaalmid ku timaada quruxda iyo bilicda dhirta haddaba jacaylkuna waa sida oo kale waxa uuna u baahan yahay in runta lagu quudiyo kalsooniduna ay noqoto hooygiisa ma fahmin sababta ku riixaysa dhalinteena maanta inay niyadda ka jabiyaan ruux aaminay jacayl dhab ahna u qaaday isla markaana ay cuqubo iyo eedba xambaartaan haddaba gabadhani waxay tiri waxaan jacayl baaxad weyn ina dhex maray bay tiri macalinkaygii iskuulka maalmo wanaagsan oo aan niyadeeda ka harin ayaanu soo wada qaadanay sidoo kale jacaylkaasi wuxuu igu reebay bay tiri xasuus murugo badan oo aan qalbigayga marna ka tirtirmin waa tabintii shaacir haddaba daawadayaal si aad uga bogataan sheekooyin iyo qisooyin dhab ah oo quseeya waayaha nolosha ku xirnaaw oo subscribe saar page-kan cusub ee aayaha nolosha TV inala wadaag oo inoo soo dir maalmaha murugada iyo mahadada kugu beeray ee aan ka go'in xasuustaada adigoo fariin inoo soo diraya isma lahayn bay tiri saaxiibta ayaa kugu qiyaamaysa jacaylkaaga sidoo kalena isna kama filan bay tiri inuu xilliga adag garabkayga ka bixi doono haddaba waxaan idiin soo gudbin doonaa Saara oo ka sheekeynaysa qisadeeda jacayl bilow ilaa iyo dhammaad sidoo kale waxay idinka codsatay inaad la talisaan iyadoo ballan qaaday inay mid u aqrin doonto fariimihiina waatan Saara marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan sidoo kale waxaan si khaas ah u salaamayaa bahda aayaha nolosha TV maanta igu dhiirigeliyay inaan aniga qisadeyda jacayl aan soo bandhigo sidoo kalena ii ogolaaday inaan qisadeyda la wadaago aniga magacayga waa Saara waxaan joogaa magaalada Muqdisho qisadan waxay igu dhacday 2 sano ka hor waxay ahayd 2016 runtii qofkii aan xiriirkaas wadaagnana wuxuu ahaa in aninkeyga iskuulka ii dhigi jiray xiriirkan isaga xaggiisa ayuu ka bilowday oo isaga ayaa ii soo bandhigay anigana waan aqbalay oo waan soo dhaweeyay waxaana uu ahaa daacad xaqiiqatan markii uu xiriirka ii soo bandhigayay wuxuu ii daba dhigay codsi kaasoo ah in maxay ahayd tole aan aniga xiriirkeena qof kale aanan la wadaagin oo aniga isaga ilaahay inuu koobnaato xaqiiqatan anigana waan ka ogolaaday taasina ma ahayn midaan aniga dhaqan ama caado aan u leeyahay xaafadna leegama yaqaan inaan aniga aan dhibkeyga ama farxadeyda ama wax uun in yar cilbaduleelkeed ba ahaatay la soo gudboonada inaan qofna ka qarsado runtii saaxiibka iigu dhow ilaahay ka sukow waxay ahayd hooyaday macaan
aan la wadaagi jiray dhibkayga iyo dhaawacayga iyo farxadeyda wax walba aniga ila soo gudboonaada. xaqiiqatan anigina hooyo waan ka qariyay, taasina waan ku qaldanaa 100%. xiriirkaasina waxaan qarinayay muddo 9 bilood iyo ka badan ayaan qarinayay. intaasina codsigiisii ayaan tixgelinayay iyo jaceylkiisii oo indho daraandar igu riday aniga. xaqiiqatan muddo markay kasoo wareegatay 9 bil kadib ayaa waxaa dhacday in aniga la ii soo doonay wiil ina adeerkaya. marka la ii sheegay xaqiiqatan waan naxay aniga, waxaan sameeyay waxaan ku hadla ayaan garan waayay. dhammaan hooyo iyo walaalo waxay iska kaydhigeen in aniga ay garabkayga yihiin. xaqiiqatan habeenkaas marka la soo sheegay hadalkaasi aabahay ma uusan joogin, taleefon ayuu ku soo sheegay. habeenkii labaad ayuu imaaday. aniga habeenkii ugu horeysay marka la ii sheego horta waan wacay, marka dadka kala seexdeen aniga waan wacay wiilka waan u sheegay oo waxaan ku iri arrinkan baa soo kortay walaalo oo sidaan baa la igu dhahay. wuxuu igu dhahay xabiibti amar buuxa ayaad u qabtaa, waalidiinta hadday kugu adkeeyaan inay wiilkaas ku guurinayaan bal way ku weydiinayaan inaad qof un xiriir la leedahay u sheeg inaan anigii adiga xiriir leenahay. waxaan ku iri waayahay. habeenkii xaqiiqatan 2 indhood aan aniga leeyahay isma aanan saarin habeenkaas dhan ilaa waagu uu ka dilaaco waan soo jeeday. kaliya waxaan u dhaxeeyay sariirta iyo banaanka. xili aan salaad dukanahay waan iska fadhiyo waan duceysanahay maanta dhan, iyo xili aan sariirta iska dul saaranahay aan soo jeedo maanta dhan. indhahayga waa inay isugu imaadaan oo hurdada macaankeeda aan dhadhamiyo nafteyda xaqiiqatan waa ay diiday. habeenkii dambe markuu aabbe imaaday aniga waa la ii wacay. aabahay waan u tagay. wuxuu igu dhahay aabe gabadhaydii waa markii igu horeysay aan aniga arrin noocaan ah aan kaa codsanayo. aniga waan ku dhalay, waan ku soo koriyay. heerka maanta ay gaarsiisantaa ilaahay ka sokow anaga ayaa ku soo gaarsiinay. maantana xaqiiqatan kalsoonidaan aniga kugu kalsoonahay caruurteydii kale xataa kuma kalsooni gabadhaydii. aabahay xaqiiqatan wuxuu ila hadlay si aad iyo aad u qurux badan ayuu ila hadlay, si naxariis leh ayuu ila hadlay, si walba ayuu ila hadlay, si farxad leh ayuu ila hadlay, si asaga aniga dartay wax walba uu u sameyn karo ayuu ii sheegay. laakiin waxaan sameeyay aniga waan ku madax adeegay. waxaan ku dhahay aabe maya, waan ku baryaa aabe. anigana waa markii igu horeysay aad iga codsatay xaqiiqatan, laakiin waa markii igu horeysay aan ku dhahay aabe maya. wuxuu igu dhahay maya gabadhaydii bal ii sheeg hadday qof kale jiro oo aad xiriir leedihiin. aniga xaqiiqatan aabe dhankiisa waan ogaa inay gabdhaha aad iyo aad u jecel yahay. waan ooyay, wax badan ayaan ooyay. aabe wuxuu igu dhahay aabe macaan ha ooyin, maanta aniga farxadaada ayaa farxadeydii ii ah, hana iga ooyin waan ku baryaa. bas kaliya ii sheeg haddaad qof xiriir leedihiin. waxaan ku dhahay aabe maya. wuxuu igu dhahay waayahay xataa wiilkan in adeerkaga aan kugu nikaaxo aabe, kadib markaa waxbarashadaada dhamaysato. maya aabe waxbarashadeyda un baan ku celcelinaya aniga. aabe wuu ku madax adeegay. markaasuu dhahay uu isa sabay, wax badan ayuu ii sheegay, wax badan ayuu iwaaniyay. khayr allah siiyo aabahay. wuxuu igu dhahay waa ballan, wax walba aad jeceshahay waan kuu sameynayaa aabe. hadduu qof xiriir la leedahay ii sheeg. waan u sheegay aabe. ilan anigana amar ayaan qabayo markii horena ha sheegin baa la igu dhahay, haddana amar ayaa la igu siiyay inaan sheego. dan aabe waan u sheegay anigoo weliba ooynaya. markaasuu igu dhahaa ooyin gabadhaydii waan kuu duceeyay aniga, dhibna arki maysid, noloshaadana ilaahay ka sokow garabkaaga ayaan taaganahay. farxadaada hadday dhankaasi ahaatay aabe anigana waan kula faraxsanahay, dhankeyga ha ka walwalin. adeerka iyo awowhana aniga ayaa qancin doona. orod iska bax. waan iska soo baxay. xaqiiqatan hooy markay ogaatay inaan aniga macalinkeyga xiriir la leedahay oo aan ka qariyeyna hooy waayo iga xumaatay. 3 maalmood dhan maysan ila hadlayn. ana 3daas maalmood
kaliya salaad iyo weyse inaan banaanka u soo baxa mooyaane qolka kamaanan soo baxaynin. Carada hooyo ay caraysan tahay. Heer aniga waxaan gaaray in jikada inaan galo cunto aan soo kariyo xataa in la iga ilaaliyo ee iga cabsadaan inaan aniga cuntada aan sun aan ugu dari doono si aniga arrimahayga igu hagaagaan darteed. Hooyo waxay aamintay inaan aniga ahay qof nooc kale ah ama qof la sixray camal. Saddexdaas maalmood aniga cunto ma aanan cunin, sida nijaasta la isaga ilaaliyo ayay hooyada iyo walaalahay xataa cunuga midka ugu yar guriga 4 jirka ayaa ii saay aniga markaan kelmad dhaho iska badaa in aniga hadalkayga leega jawaab xataa in la isoo fiiriyay maqhuureen sida la iskaga ilaalinayay. Runtii xaaladaas aan ku suganahay waan u dulqaadan waayay. Sidoo kale hooyada inay iga aamusnaato oo intaas col iga ahaatana waan u dulqaadan waayay. Waxaan la hadlay aniga hawriyaal ayaan la hadlay, iyaga ayaa hooyo la soo hadlay, aniga iyo hooyo waan heshiinay. Kadib waxaan u istaagay sida aniga jaceylkayga aan familygayga ugu soo biirin lahaa, sida dadkan aan dad xididkii noqon lahayn aan aniga ugu talin lahaa, sida aan ugu guuleysan lahaa jaceylkayga inuu familygayna ka mid noqdo. Alxamdulillah ala kulli xaal waxaan wax badan u dhibaatoodaba waan ku guuleystay. Waan baray hooyo ayaan baray, aabba ayaan baray, dhammaan walaalahay ayaan baray. Wuxuu ahaa qof anaga xitaa marka haday dhacdo xataa telefoon marka ku wada hadlayno qof kale uu noo imaado nala joogo telefoonka anaga ku hadlayno wuxuu u maleyn jiray qof anaga nala dhashay ama qof family-ga ka tirsan inaan la hadlayno. sidaan u faraxsanaan jirnay nafsadeyda ilaa hadda marmarka qaar waxay weydiisaa farxadda ilaa heerkaasi ah ma qorsho uu maleeyay oo adiga qayaano oo ku maleeyay ayay ahayd mise oo jaceelkii baa inaan si kale ka noqday mise asagii baa waxba maxaa si ka ahaa ilaa hadda nafta way weydiisaa waxaan ugu jawaabana ma garanayo. waxay ahayd xasuus qaali ah aanan ilaawi karin noloshayda farxadda aan wada qaadanay runtii isaga dartiis aniga dhibaato badan ayaan u maray heer waxaan arkay telefoon markuu ii soo diray maxay tahay telefoonkan maxay tahay sidaan in aniga la igu qeylin jiray markasta aniga ma aanan dhihi jirin xaaladan ayaan ku suganahay. runtii mar walba waxaan jeclaa anigoo faraxsan oo dhoola cadeynaya inuu i arko mar walba waxaan jeclaa murugadeeda aniga horta kama aanan qarin jirin maanta in yar halba duleelkeeda la eg xataa ha ahaatee wixii ila soo gudboonaada waan la wadaagi jiray laakiin marna uma ogolaan jirin inuu isaga ismurjiyo. waxaan u muujin jiray inaan faraxsanahay waxaan mar walba dareensiin jiray xaalad walba adag inay isbedeli doonto. waa ilaahay subxaanahu wa tacaala albaabada dhan ma wada xiro. muddo ayaa ka soo wareegatay waxaan anaga dad wax ahaanaba hooyo waxay igu dhahday telefoonkan maanta dhan la soo diray shukaansigan iyo waxaan iyo aniga ma doonayo hadduu dankaa leeyahay dad ayaa leedahay waa inuu ku soo raadiyaa. dan aniga waan la hadlay waxaan ku iri hooyo sidaan ayay dhahday wuxuu dhahay waayahay waan ku soo raadinayaa. kadib maalin ayaa ka dambeysay hooyo la soo hadlay wuxuu dhahay hooyo codsi ayaan wataa codsigaasi oo ah in aniga la ii sugo sanadkan hadda dhalnaya intuu ka dhamaanaya sanadkaasina wuxuu ahaa 2017 18 hooyo waa balan gabadho baan guursanayaa waxba iga si ah inta hooshayda ay isku kayso hagaagayso gabadha ay sii joogto. hooyo aabbo way ogolaadeen codsigiisa. aniga markii ugu horeysay ee la ogaaday inaan aniga qofkaas xiriir leenahay iskuulka xataa waa la iga reebay. waxaan aniga mar walba ku dadaali jiray qofna inaan marna aan dareensin in aniga iyo waalidkayga aan isku dhacsanahay arrimo aniga qaas ah dartiisan iskuulkayga la igaga reebay. aniga waxaan hooyo aabbo la hadlaba waxaan aniga ayaga muranaba waxaan isku dhibtoonba waa la ii ogolaaday iskuulkayga. dan aniga waxbarashadeyda ayaan iska aadi jiray sanadkaas aniga sidaa ayaan ku dhameystay. xaqiiqatan sanadka ma uusan dhamaan 2017 aniga waxaa xanuunsaday aabahay heer aniga waxaan gaarnay inaan aabahan aan ka quusano oo aan isdhahno goormo dhimanaya ma hadda ma beri ma saacad kadib goorma dhimashadiisa baan sugi jirnay anaga. runtii anigana xaqiiqatan hooyaday aabahay adduunka ayaan ugu jeclaa.
waxaan dhahay aabahay xaaladan ku sugan ma ahan midaan uga tagi kara aniga kama aanan tagi jirin iskuulkiina fasax ayaan soo qaatay muddo 2 bilood ayaan guriga joogay aniga oo aabahayna xanuunsanaa aan ku xanaaneynayay xaafadeena waxay ahayd mid maalin kastaba 50 ruux iyo ka badan ee imaadan ay kasii baxaan maamulkeedana aniga ayaa gacanta ku hayay daawada aaban aniga ayaa gacanta ku hayay daawadiisa aniga ayaa ogaanayay mar walbana markaan cunto siiyo daawadiisa aniga ayaa sii jiray cirbada ayaa la duri jiray aniga ayaa gacanteeda ku duri jiray aabahay mana ahayn xaaladaan aniga ku cidlaan karo familigayga labadaas bilood aniga ma aanan aadin iskuulka mana arkin isaga runtii intaan aniga xaafada joogayaan iskuulka ka maqnaa waan wici jiray markaan fursad yar helo waan wici jiray waxaan ahaa qof maalinkii dhan ku mashquulsan xanuunka aabaheed qof maalinkii dhan ku mashquulsan inaan guriga hagaajiyo inaan aniga martida soo dhaweeyo runtii hal mar haddii aan fursad helo walow 1 daqiiqo ha ahaato waxaan jeclahay inaan la hadlo hore ayaan kasoo wici jiray igama qabanayo wuu igu dhageysanayaa waxaan wacay halkaas daqiiqo gudaheeda ayaa waxaa laga yaabaa 20 meeskol iyo ka badan inaan u dhaafo message ay dheerihiin aan u diro xaqiiqatan message-keygana lagama soo jawaabayo koolkeygana dib umuusan soo dabagali jirin hadday dhacdo inuu iga qabto taleefankana hadal fiican muusan igula hadli jirin isbedelkaas aniga waan la yaabay waxaan ku dhihi jiray maxaa soo kordhay iskuulka baan ku mashquulsanahay ayuu igu dhihi jiray sidaas ay tahay aniga waan qanacsanaa waayo aniga mar walba waxaan dhihi jiray aniga adduunka dhan hadday isku imaadaan oo ay ugu dhahaan hebel waa sidaan waa qof xun runtii hadalkooda aniga lagama yaabo inaan aamino kaaga mooyaane xaqiiqada dhabta ah markaad adiga afkaaga iiga sheegto ayaan aaminayaa aniga waxaa jiray wiil ay saaxiib yihiin marmarka qaar isaga uu taleefankiisa ka maqan yahay iga qabanaya wuu igu dhibi jiray maxaliima adiga ma fardowsa mise waa sacdiya mise waa faa'iza war ma ahan intaaba oo iga raali noqo waxaan u malay gabar shalay uu ibaray waxaan u malay gabar xalay uu ibaray ayaan ku maleynaa ma mid cusub aad tahay isagoo igu kaftamaya markuu soo sheego sidaan baan ku dhahay udhana asagoo naxsanayo isoo jiray muxuu kugu dhahay saaxiibkay waxaan ku dhihi jiray waa caadi aniga ma aaminayo wax kasta oo ii dhaho kaliya adiga oo kaliya ayaan ku aaminsanahay ayaan ku dhihi jiray saaxiibkan uu iska kaftamaya iska daa waxaa dhacday in aabe uu fiicnaaday alxamdulillaah xanuunkana waa uu ka kacay inuu shaqadiisii dib uu ugu laabtay ayaa dhacday kadib aabo isagoo ii duceynaya ayuu maalin igu dhahay intaad ila joogtay aabe runtii ma ahan maalmahan aan xanuunsanaa wada joognay aabe maalmo aan aniga ilaawi karo aabe maalinkaa wuu ii duceeyey ilaa aan ka ooyo aan lugihiisa hoostiisa aan fadhiista aniga ayaan ooynayay aabahay maalinka wuu igu dhahay iskuulkaaga soo aad wuu i fasaxay aabe ana waan baxay iskuulkii ayaan aaday 1 isbuuc ayaan iskuulka dhiganayay isbuucaasi aniga isbedelka daran ayaan arkaa waayo aniga shalay taleefan baan ku dareemay isbedelka laakiin maanta wajigiisa ayaan ba arkaa isbedelka ka muuqda waayo aniga iskuulka ayaan waxaan ka ahaa qaab galaas markii aan macallimiinta waxaa laga yaabaa inay xafiiska wax iiga soo diraan isaga xafiiska ayuu joogaa maamulo ayuu ahaa markii aan soo galo wuxuu u maleeyaa inaan aniga asaga aan u soo muraadaan asaga dana aan ka leeyahay aan soo galo macalinka xafiiska oo iskuulka ku jira galaaska macalin kuma jira miya maxaa soo doontay orod carad dadkeen iska arkin aniga adiga kuma aanan imaan macalinka waraaqo ii soo diray ama buug baa la ii soo diray wax baa la ii soo diri jiray oo aan xafiiska ka soo dooni jiray markaasaan ku dhihi jiray adiga kuma aanan iman waxaan baa la ii soo diray keen waan la yaabi jiray markuu sidaa iiga sii fogaanay maalinka dambe waxaan dhacday anagoo galaaska ku jirna in maamada ay banaanka soo istaagtay ayna ii wacday galaaska banaankiisa ay taagneed maamada ayaan u tagay qofaan aqoon ayay i weydiisay qofkina waa qof iskuulka ka shaqeeya ayuu ahaa ana aqoon uma aanan lahayn qof dumar ayay raadinaysay dan xafiiska ayaan imaaday markii aan xafiiska saa u soo istaagayba waxaan arkay isaga iyo gabar isla fadhiya oo ay wada qoslayaan oo ay faraxsan yihiin markay aniga arkeenna mar qura ayay wada naxeen wayna aamuseen aniga waxba kama aanan dhiganin waxaan ku dhahay gabar heblaay la dhaho ayaa la raadinayaa ma joogtaa meeshaan
haa way joogtaa soo gudbi qofkaas waan kasoo tagay isla markii aniga dowrada camal markii aan iskuulka kasoo baxay ayuu i qabtay wuxuu dhahay ha u bixin wixii hadaaya aad aragtay qoftaas waa dumaashida saaxiibkay ayay xiriir leeyihiin waxaan ku dhahay waa caadi waxba kama aanan dhiganin aniga isbuucaas anigoo yaaban ayaa maalinka dambe isbuuci kale anigoo iskuulka u socdo gabar ay saaxiibo yihiin ayaan wadada isku aragnay anna aan aqaano waxay igu tiri hiblaayo maad gabar haysaa maya baan ku iri maalmahan iskuulka kuma aanan arag wallow aniga aan maalmo fara badan iskuulka aan ka maqnaa isbuucii aan joogana maanan arag ayaan ku dhahay way guursatay hebel ayaana guursaday waa naxay markay sidaa igu tiri aniga waxaan ku dhahay macquul ma ahan isbuucii aan jooga dhan iskuulka waa wajar isbuuci daraad lama guursanay gabadha muddo ayuu qabaa u joogtaa mar dhow ayuu guursaday waxaan dhahay waayahay dan aniga waan iska baxay aniga waxba aanan ka dhiganaynin xaqiiqatan iimaankana waa shay qaali ah waan baxay taladayda ilaahay mar walba aniga taladayda Allah subxaanahu wa ta'ala ayaan iska saaran jiray waan iska baxay xiisadayga ayaan qaatay dan markii xiisadaha ii dhamaadan anigoo soo baxay ayaa waxaan arkay isagoo kaligiisa oo xafiiska fadhiya markaaba waxaan is iri waa kaligiisa u laabo anigoo soo baxay ayaan u soo laabtay haddana markaasaan ku iri maanta warkaan ayaa magaalada kasoo maqlay maxaa jira wuxuu igu dhahay may waxaas ma jiraan wuu ii dhaartay uqsim billaah maalinkaas wuu dhaartay wuxuuna igu dhahay 18 waxyar ayaa iiga dhiman adiga mooyaane qof kalena ma doonayo aniga waayahay ayaan ku dhahay waan iska soo baxay anigoo weliba qanacsan xaafadeydii ayaan imaaday markaan dabcay inaan waco waa sidii isbedel kale ma jiro taleefanka sidii baa lagu dhageysanayaa marmarka qaar isagoo la arkaya inuu dhacayo markuu go'o taleefanka isla markii baa la jaraaya taleefanka wuu daminayaa wuxuu saas ahaada maalinka dambe aniga waxaan go'aansaday mar dambe inaanan wicin maanan wicin taleefankiisa dhan ammaanka ayaan siiyay 3 maalmood xiriirtaba taleefano isaga leeyahay ma wicin iskuulka haddii aan tagana iska badaaya inaan la hadlo maanta dhan hadduu xiisad isiinayo su-aalna ma weydiin jirin lamana hadli jirin hadday dhacdan inuu su-aal i weydiinayo oo i weydiiyo anigoo dhulka fiirinaya ayaan ugu jawaabi jiray xitaa wajigiisa maanan fiirin jirin waxaan isku dayi jiray sidaan aniga qofkan uga gaabsan lahaa haddana waxaan aniga maskaxdeyda waxay leedahay bal qaacra ha noqonin ogaaw xaqiiqda dhabta ah ee ka dambaysa qofkan ninkan habeenkii dambe wuxuu bilaabay inuu isoo waco oo igu dhaho waad iga shakisan tahay soo ma ahan aayad quraan ah ayuu iisoo daliiliyay oo iigu sheegayo inaan isaga been uusan ii sheegayn aniga waxaan ku dhahay kalaamka Allah subxaanahu wa ta'ala waan aaminsanahay magaca ilaahay ayuu ku dhaartay isimka Allahna waan aaminsanahay ayaan ku dhahay laakiin caawa kelmad walba aad igula hadashidaan tahay aniga ma ahan midan ka aaminayo isbedelkan adiga ka dareensanahay ayaa wax walba iga laweynaan ku dhahay xaqiiqda ilaan ka ogaanayaan lagama yaabo inaan noloshaada ka fogaado sidaan ayaa sida hoos kaga ayaan ku daba soconaya ayaan ku dhahay aniga wuxuu igu dhahay shakiga iska daawaan ku bariyaa shaki ayaa kugu jiro aniga iga shakin adiga oo kaliya ayaan ku jeclahay waayahay ayaan ku dhahay aniga ninkan isagoo sidaas dhahay ayuu haddana weli sidii yahay wax kaloo isbedel ah xataa wax yar ma jiraan inuu iska sii daro mooyaane hadday dhacdo inuu taleefanka iga qabto sida cunuga isaga dhalay oo kale ayuu ii canaanaynayaa wuu igu qaylinayaa maxaad maanta oo dhan ii soo wacaysaa maxaad iga doonaysaa maxaa waxay sidaa ahaataba maalinka dambe waxaa dhacday muddo saas waxaan iskugu wareersanaanaba in taleefankiisa aan wacay oo xaaskiisii ay iga qabatay waan qaracmay markaan codkeedii maqlay waxaan ku iri taleefanada islaameed maxaa ku dhiibay markaaba igu tirina adiga baa khaldan oo taleefanada islaameed maxaad u soo wactay ninkan xaas ayuu leeyahay jaanisna kuma haayo adduunka inuu cad yahay inuu madow yahay midna waan garan waay aniga maalinka sare jooga ayaan ka dhacay haddii aan qof u dan sheegan lahaa ama aan u dhib sheegan lahaana
xaafadda keli baan ku ahaa aniga iyo caruurta iga yaryar iyo allah subxaanahu watacaala hooyadee maysan joogin way iga maqneen sidaa ay tahayna hooyo waa qof xanuunsan waxyaabaha qaar ma ahan qof xamili karta anigoo xaaladeeda caafimaad ka fikiraya hooyo waxba uma aanan sheegin waan ka qariyay mar kale isbuuciisa ayaa la gaaray sidoo kale hooyana lama joogto maalin khamiis ah ayay ahayd maalinkay sidaa igu lahayd aniga maalinkii markay sidaa igu tiray ayaan waxaan wacay walaalkiis asaga ka yar waxaan ku dhahay walaalka taleefankiisii gabar baa iga qabatay sidaan ayayna igu tiray qofta iga qabatana ma ahan qof kale ee waa heblaayo si fiican ayaan u garanay waana qofkii maalintii xafiiska la fadhisay ee aan ku arkay wada qoslayeen wuxuu igu dhahay waxaas waxba kama jiraan walaalkay muusan guursanin waxaan ku dhahay waayahay wixii xaqiiqa ah ilaahay subxaanahu watacaala daah kama saarna qofkii daacad ah iyo qofka laqdaba ahna ilaahay wuu u jeedaa anina daacadnimadeyda ilaahay ha igu badbaadiyo wax kale ma aanan dhihin taleefankan ku jaray dan walaalkii ayuu sheegay isagoo wuxuu isoo wacay igu qoslaya oo sida qof igu jeesjeesaya camal ay tahay wuxuu igu dhahay taleefanka maanta yaa kaa qabtay waad ogtahay waxaad ogtahayna aniga ha i weydiin ayaan ugu jawaabay wuxuu igu dhahay may waa walaashay adiga ayuu ku dhibaysay kaliya waxay rabtay inay ogaato aniga iyo adiga wax naga dhexeeyaan waxaan ku dhahay ilaahay unbaa wax og sida qeyr ahna allah ka dhigo wuxuu igu dhahay isdeji waxaas ma jiraan kaliya adiga unbaan aniga ku arkaa naag kalena ma doonaayo waayahay ayaan dhahay codkaan aniga maqlayaan dhahay kolay daa igama saarnaan dhahay inaysan walaashaada ahayn laakiin aan dhahay xaqa iyo runta waxa ay tahay aan dhahay ilaahay unbaa arkayaan dhahay anigana daacadnimadeydaan dhahay ayuu ilaahay ugu badbaadinayaa dhib ma lahan wuxuu igu dhahay kolay aniga hadda xiisada ayaan gelayaa adigana dabcan sidaan filaya waad xanaaqsan tahay oo aad maseersan tahay waxaan ku dhihi lahaa waxaa sidinteeda ka saar ee qeyr ayaan ku rajeynayaa waayahay waxaan bilaabay bacdal casr inaan waco taleefanka la igama qabanayo xataa la iskuma dayay in aniga wax yar xataa la fahansiiyo ama wax yar xataa in la qanciyo bas waan iska daayay qamiisteedii kale ayaa la gaaray sidoo kale wax isbedel ah ma jiraan taleefankiisa waa u dansan yahay uu dhacaya lagama qabanayo mar waa la daminayaa mar waa la shidayaa mar waa la inta ayuu igu dhibay habeenkii dhan sidaa ayuu ahaa habeenkaasina runtii maanan hurdin murug darteeda iyo fikir maanan hurdin subaxii jimcaha ayaan wacay xilliga aan wacay xataa 12 ka hor ayay ahayd xilliyadaasna xilliyada badan aniga asaga aan wada sheekaysan jirnay ayay ahayd waayo habeenkii markii aan seexanayo aniga heer waxaan taagnaa dadka dhan marka ay wada seexdaan kaliya in banaanka soo aado aan isaga la hadlo ilaa xilli dambe laga gaaro banaanka aad ayuu dhaxan u yahay dhaxantaas iyo qabowgaas ma aanan dareemi jirin aniga hadalkiisa inta aan maqlay heer waxaan taagnaa aniga madaxa haduu i xanuunaya xataa ayaan aniga hadalkiisa maqlo inaan aniga xanuunkeyga dhan aan iloobo nafteyda aan ka dhaadhicay inaan aniga fiicanahay meelna aysan i xanuunin ilaa heerkaas qofkii aan jeclaadana qof kaleeta ayuu iga raacay runtii maalinkii dambe ee jimcaha ahayd markii aan wacay 12 taleefankiisa xaaskiisa ayaa iga qabatay waxay igu tiri aniga Soomaalian hore kuugu sheegin ma i aaminaysid miya waxaan ku dhahay walaalay dhageyso aniga warkaan ayaan banaanka ka soo maqlay inaad xiriir leedahay maxaa xiriir la dhahaa xaaskiisii ayaan baahay xalaasha ahayd waad khaldan tahay walaalay isa sax waxaan dhahay mala hadli karaa isaga haaba igu tiri mas'uul ayuu ku jiraa ku soo celi waayahay ayaan dhahay waan ku celiyay isla iyadii ayaa iga qabatay cabaar kadib aniga waxaan wacay walaalkiis haye maantana sidaa baa la igu dhahay maxaad igu jawaabi doontaa ayaan ku dhahay aniga markaasuu igu dhahay may weli wax ma jiraan ayaan ku leeyahay aniga waxaan dhahay waayahay wixii jiraan ilaahay kama qarsoona dhib ma lahan kadib isaga ayaa isoo wacay isagoo igu qaylinayo hadallo kulul oo igula hadlayo aniga muddo ayaan qabsaday muddadii aan qabsaday hadda sugi kartid waa inaad isugtaa aysan ahayn aniga ha i dhibin qof shaqaysanaya ayaan ahay guriga ayaad maanta dhan iska joogtaa wax xoolaha oo aad adiga haysid ma lahan maanta dhan ayaad meelaha iska fadhisaa taleefon ha igu dhibin ayuu igu dhahay aniga
qof weyn ayaa tahay dambi loo qoray maxay tahay waxaad ila daba taagan tahay ii been abuuradka aad ila daba joogtid waxaan ku dhahay waan ogahay inaan ahay qof weyn dambina loo qoray tilaabti maanta aan qaado kelmadii aan ku hadlana waan la socdaa ayaan ku dhahay ma ihi dadka beenta sheego mana jecli beenta kulay wax walba oo jirana way iska soo cadaan doonaan wuxuu aniga xiisad ayaan galayaa teleefankeyga ay iga soo wicin waan kuu sheegay xilli ayaan qabsaday waa inaan sugtaa waayahay ayaan ku dhahay teleefanka ayuu igu jiray anagoo qadka ku jira weliba bas waan iska aamusay xaalka sidaa ahaadaba casirkii maya bacda duhur ayuu isoo wacay wuxuu isoo wacay bacda khudba wuxuu ugu dhahay igaraalin noqon marka hore marka xigta wax kasta waa sidaad adigu u aragtay xaqiiqda ayaana taasi ah intaan aniga waxaan kaaga qarinaya waxaan diidanaya inaan adiga ku waayo waxaan ku dhahay maxay tahay sababta keentay ilaa kalsooni darada heerkan gaarsiisan ayaad aniga ii dhibaataysay ayaad qalbigayga u dhaawacday maanta dareenkaad adiga leedahay ayaan anigana leeyahay hal qalbi ayaad leedahay anna halkaas qalbi maxay tahay sababta aad aniga ii khiyaantay maxayse tahay sababtaad aniga waxaanu dhibahaadii ku geysanaysid maxaan ka sameeyey wuxuu igu dhahay keliya waxaan diidanaa inaan adiga ku waayo waxaan dhahay tan waayo wadadii aad igu weyn lahayd ayaad qaaday waxaad samaysay waa wixii aad aniga igu weyn lahayd markaasuu igu dhahay maya waan ku baryaa sidaa ha sameynin aniga waxaan ku dhahay qof xaasle ayaa tahay mana rabo reerkaaga in aniga madaxayga uu baaba'o aan u burburo aniga darteeda inay dhibaato kugu soo gaarta reerkaagana ma jecli wuxuu igu dhahay igaraali noqon wax walba ma ahan aniga ogolaanshaheeg laakiin waalidiinteeda ogolaanshahooda ayay ahayd waxaan ku dhahay aniga nin rag ayaa tahay oo go-aan leh maantana shaqsiyan u shaqaysta anigoo qof dumar ah ayaa waalidiinteyda kasoo horjeesta jaceylkan adiga kuu qabo awgiisa adigoo nin raga hal mar aad dhahdo aniga qofkaasi ma rabay aad ii keenteen ayaa ku filan qof kale ay la socdayna dhehda laakiin adiga maxaadan sameynin wuxuu igu dhahay wax kastoo dhacay waa ay dhaceen laakiin qofka keliya aan jeclahay aniga waa adiga waxaan ku dhahay waxay ahaatay manihin dad wada socon karna aniga adiga muddo ayaa kasoo wareegatay aniga asaga xiriirkiisaas ay tahay wuxuu iga codsaday inaan sii wadno waxaan ku dhahay waayahay ilaan aniga waxaan ahaa naf si waali ah wax u jeclaatay si aniga jaceylkiisa aan wiilooba darteed ayaan waxaan islahaa u sii wad xiriirkiisa waana ilaahu waa inuu jaceylkiisa igu sii zaa'idaya maayaane waxaan bilaabay inaan xiriirkiisa u sii gaabiyo waana ka gaabsaday aniga oo ammaanka ayaan siiyey aniga heer waxaa gaari jaceylka aan jeclaa markii aan iskuulka tagay ay dadka ogaadeen inaan aniga isaga isku dhacnay oo asaga xaas kale uu leeyahay inaan aniga maalin dhan oynayay maalinkii markii aan tagay maalin sabti ah xaqiiqatan waxay ahayd maalin aniga exam aan u fadhiisan rabo runtii iskuulka waxaan tagay anigoo xanuunsan ardayda waxay igu dhahayeen iyo walaalkii isaga la dhashaba oo iskuulka miyaad imaatayba ama geesinimadaas ayaa maanta ku keentay iskuulka ama waxaad tahay qof karti leh anaga isma aanan lahayn waa imaanaysaa waad iga adag tahay waad iga karti badan tahay xaaladii shalay aad ku sugneed haddaad ku imaatay waxaan dhahay aniga waxbarashada iyo jacayl xaqiiqatan hal wadama wada qaadi karaan anigoo xanuunkaasi dareemay ayaan haddana exaamkayga iyo waxbarashadeedaan iska sii watay muddo kadibna aniga iskuulkii dhan ayaan ka baxay waxbarashadiina waan iska dhaafay oo guri ayaan iska fadhiistay wuxuu xaalka sidaa ahaadaba isaga waan iska iloobay waxaad bilaabatay akhiirkii sanadka 2007 ayay ahayd dhammaadkiisa 2008 markuu bilaabanay ayuu isoo wacay isagoo dhahaya aniga gabadhan gursiga waan kala tagnay hadda ayuu jaceylkaaga kuu soo laabtay waxaan ku dhahay maya mar ayaad qalbigayga dhaawacday oo wejiga waalidiinteeda aad igu horgubtay hadda maya ma sameyn kara iga raali noqo sida ayaan ku kala harnay aniga iyo isagana ilaa ay hadda maanta laga joogana waqtigan marka qaar ayuu isoo wacaan isagoo ku andacoonaya inaan aniga darteeda u nacay dumarkii oo dhan aniga waan ogahay
inuu khiyaano kala maleegayo laakiin isaga ma oga waayo aniga waxaan la kulmay qof familgiisa ka tirsan isaga ayaana ii sheegay inuu qorshe kale ii maleegsan yahay wuxuuna igu dhahay qofkaas hadduu ku soo waco waa beentii waxa uu kula hadlayo ee magaalada ka dhaqan dheh isagana weli qorshe kale ayuu ii maleegsan yahay ilaa ay haddana sidaas ayuu igu dhahaa ii soo laabo xaqiiqatan anigana waxaan ku dhahay maya lagama yaabo anigoo guriga hooyaday joogo marcadda ah ayaad mustaqbalkeedii isku dayaysa inaad baabi'iso farxadeedana aad baabi'iso niyadda igu jabisid ka waran haddii aan aniga gacantaada soo galo sidaad ila dhaqmaysaa sidaas ayaan ku kala harnay waxaan leeyahay walaalahayga Soomaaliyeed dhalinyarada khaasatan rag iyo dumarna wayna nala dhasheen raggana wayna nala dhasheen maanta haddii ragga ay ku fikirayaan inay dumarka dhibaateeyaan oo ay wax yeeleeyaan way kula dhalatay dumar way ku dhashay waad dhali doontaa waadna guursan doontaa mustaqbalka ilaahay awoodiisa waxaa laga yaabaa inuu awlaad kale ku siinin oo hal gabar uu kaliya awlaad oo kale kuu siiyo idan ku xanaanayso markaas ayaad ogaan doontaa marka waxaan leeyahay yaan lagu ciyaaran dumarka dumaroo adinkana qalbiga aad leedahay ayay leeyihiin raggana ha ku ciyaaranina walaalihiina waxaan nahay dad walaalo ah dad islaam ah dad islaamnimada iyo muslimnimada ay walaalaysay diinta islaamka ku walaalooba ayaa nahay dad alla dartiisa isku jecel ha isdhibinina ha isdhaawicina qofna qofka kale oo xumaynin adduunka ma ahan midaan sii joogan mana ahan midaan ku waareyno wax walba aan maanta ku sameynana si ula kaca waa nagala xisaabtami doonaa ha fiirinina adduunka iyo wixii dushiisa ahaaday waxa inoo dambeeya waa inaan ka fikirnaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sidoo kale bahda ayaa nolosha TV waan u mahadcelinayaa waa mahadsantihiin walaalahaygana intaas ayaan kula dardaarmayaa aniga waxaan leeyahay kuwa khayrka isfara Allah naga wada dhigo intaas